Bismillahirrahmanirrahim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa channelka Xogta Media aan kulana YouTube-ka waxaad ku soo dhawaataa warbixin gaar ah oo aan ku soo qaadan doono shirka golaha wada tashiga qaran ee uu isugu yeeray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble halkee ay wax marayaan madaxda dawlad goboleedyada inta ugu badan waxa ay soo gaareen magaalada caasimadda Muqdisho lafta garan madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maqan isagana waxaa la soo warinayaa in uu soo gaarayo caasimadda shirkaasi iyo waqtiga uu furmayo iyo waxyaabaha uu daaran yahay ayaa daawadayaal halkan idinku soo gudbi doona khilaafka u dhaxeeya Rooble iyo Farmaajo kama marna warbixinta waana idin soo gudbi doona daawadayaal xaalka sida uu yahay hayeeshee intaan guda galin waxaan daawada ka dalbanaya aan ka codsanayana muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saar iyo channelka furan ee gambraalkaasi dirbadiiba aad u heshay muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawade waxaa magaalada Muqdisho ku sugan inta badan madaxda dawlad goboleedyada dalka oo u yimid si ay uga qayb galaan shirkii uu kala hor iclaamiyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee madasha wada tashiga qaranka madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa soo gaaray magaalada caasimadda Muqdisho iyadoo siyaabo kala duwan loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha aadan cadde Axmed Madoobe iyo Saciidani ayaa ku biiray qoorqoor iyo Guudlaabe oo hore u sii joogay magaalada caasimadda Muqdisho waxaa kaliya ka maqan madaxda dawlad goboleedyada lafta garan oo asagana la filayo inuu soo gaaro caasimadda dalka inkasta oo hore u diiday shirka balse aan maanta xog ku helnay inuu aqbalay lafta garan ayaa warqad uu soo saaray 26 December ku yiri waxaan cadeynayaa inaan ka qayb gali doonin shirka uu iclaamiyay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble go'aankan wuxuu ka dhashay kadib markii lagu xadgudbay madaxbanaanida guddiga xalinta khilaafaadka oo 7 xubnood laga saaray iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka ee federaal oo shalay la kala qaybiyay waxaa la ogaaday in lafta garan uu hadda bedelay mowqifkiisa kadib cadaadis xoogan oo uu kala kulmay dawladda Mareykanka oo iyadu taageero ballaaran u muujisay shirka uu iclaamiyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble shirka Rooble ee golaha wada tashiga qaranka ayaa waxaa dib u saxid lagu sameeyaa doorashooyinka socda kadib markii ay mucaaradka si weyn uga hor yimaadeen hanaanka ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka waxaa sidoo kale lagu wadaa in deegaan doorashada lagu soo koobo hal magaalo taasi oo hore uga digay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inkastoo aan warkiisa loo joojin doonin shirka golaha wada tashiga qaranka oo qorshe uu ahaa in uu furmo 27 bishan ayaa waxaa ku yimid dib u dhac kadib markii uu madaxweynihii hore Farmaajo uu isku dayay in uu fashiliyo inkasta oo uu ku guul dareystay si kastaba ha ahaatee wuxuu ku soo aadayaa shirka golaha wada tashiga qaranka oo inta badan ka qayb galayaan madaxda ku bahoobay xilli markaasi xasaasi ah oo dalka ka taagan yihiin xiisado siyaasadeed iyo khilaaf u dhaxeeya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble khilaafka ka dhaxeeya labada mas'uul waxa warbixin dheer ka qoray Dr. Maxamuud Culuso oo kamid ah dadka falaqeeya arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya madaxweynihii hore iyo kooxdiisa ayaa waxay adeegsanayeen xeelado wajiyo badan sida cuskashada awoodo iyo tixraacyo huuha eedeymo been abuur ah adeegsiga qaybo kamid ah ciidamada dawladda oo lagu howlgeliyay musuqmaasuq ku dhawaaqida go'aamo ka baxsan awoodda madaxweyne kasta mid sharci ah iyo mid aan sharci ahayn sida Farmaajo iyo kooxo bulsho cabsi geliya jahwareeriya baraha bulshadana ka faafiya wararka been abuurka ah waxaa la aaminsan yahay in afgambigaasi taageerayeen dawlado shisheeye Qatar Ethiopia iyo Eritrea inkasta uu dhicisoobay afgambiga kooxda Farmaajo soo abaabushay haddana waxaa xaqiiqo ah in qatarta afgambi kale iyo xasarad abuur kale ay taagan tahay inta Farmaajo ku sugan yahay Villa Soomaaliya waayo macnaha ku sugnaanshaha Villa Soomaaliya waxay tahay in Farmaajo yahay madaxweyne sharci ah oo awaamiir bixin kara yahay taliyaha ciidamada qalabka sida taasoo ah been iyo awood boog lama abuureen oo wasaaradaha gaashaandhigga iyo amniga gudaha oo hoos yimaada Ra'iisul Wasaaraha suuragal ma ahan in madaxweyne aaminsan dastuurka iyo nidaamka dimuqraadiga ee la doonayo in uu dalka ku hogaamiyo uu ku fikiri karo in uu leeyahay awood uu shaqo uga joojiyo
kadibna xilka uga qaato oo ra'iisul wasaare baarlamaanka federaalka ansixiyay isla markaana ku jira xilliga iyo marxaladda xilgaarsiinta caretaker period ku tilmaaman qodobka 103 ee dastuurka ku-meel gaarka. waxaa muhiim ah in hoosta laga xariiqo in ujeedada afgembiga dhicisoobay uusan ku koobnayn doorashada ee afduubka la xiriiro xukun maroorsi iyo qabashada xukunka Soomaaliya hab ka baxsan dariiqa sharciga ah. madaxweyne hore Farmaajo wuxuu ku eedeeyay ra'iisul wasaare Roble daahida hirgelinta doorashada federaalka muddo 14 bilood ah ee u dhaxaysa Oktoobar 2020 iyo 26 Diseembar 2021 asagoo ogsoon hagardaamada muddo kororsiga ee uu maleegay muddada u dhaxaysay 17 Sebtembar 2020 ilaa iyo 1 Maajo 2021. wuxuu kaloo ra'iisul wasaare Roble ku eedeeyay in uu soo galay tuhun dhul boob uusan dadweynaha la wadaagin xog xasaasi ah oo tuhunka macno u yeeli karta, ayadoo la ogyahay in arrimaha dhulka iyo arrimaha musuqmaasuqa u xilsaaran yihiin hay'ado gaar ah. isla markaana sareeyo guud Bashiir Goobe warbaahinta u sheegay in ay been tahay in dhulka Generaal Cabdixamiid ka hadlay ahayn dhul ciidamada badda leeyihiin asaga iyo generaalo kalena ay degan yihiin oo guryo uga dhisan yihiin. ra'iisul wasaare Roble wuxuu xaq u leeyahay helitaanka iyo lahaanshaha dhul uu dawladdu bixiso sifooyin kala duwan, waana shaqo ka baxsan xilka madaxweynaha. madaxweyne hore Farmaajo wuxuu garan waayay in adduunka ka dhicin shaqo ka joojin ra'iisul wasaare iyo dastuur ahaan in ra'iisul wasaare la'aan golaha wasiirada wada dhacayaan oo xilkooda dhamaanayo. madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa isku khilaafi karaan arrimo siyaasadeed, sharci ama maamul, waxaana jira sharci habraac maamul dhaqan dawladeed ee lagu xaliyo khilaafaadka. hase yeeshee fikirka ah dawladda waa dawlad aan leeyahay, dalka waa dal aan leeyahay, shacabka waa shacab aan leeyahay waa fikirka la dagaalankiisa dhiig badan loo daadiyay laguna dumiyay dawladii Soomaaliyeed si loo dilo fikirkaasi. ku sugnaanshaha maalin dheeri ah villa Soomaaliya ee madaxweyne Farmaajo waa dambi iyo khatar weyn ee dadka iyo dalka Soomaaliyeed ku sugan yihiin. madaxweyne hore Farmaajo wuxuu ka xishoon waayay in uu adeegsado been iyo eedeemo been abuur ah ee xitaa qof shaqaale caadiga aan shaqada markaasi looga joojin karin. shaqo joojinta idhaahda ee ra'iisul wasaare Roble waa gaf weyn, waa aflagaado, waa xaaraan. sidaas awgeed waxaa waajib ah in la xaqiijiyo in madaxweyne hore Farmaajo baneeyo villa Soomaaliya oo ay wax ka ilaalinayaan ciidamada dalal shisheeye ka yimid ee Soomaaliya u jooga midowga Afrika iyo qaramada midoobay. waxaa nasiib daro ah in xubno ka mid ah golaha midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya ay weli joogaan baaqa ah in la joojiyo ama markaasi laga taqaluso talaabooyinka abuuri kara qalalaasa siyaasadeed iyo nabadgelyo, ayadoo qalalaasa siyaasadeed iyo nabadgelyo ay abuuran yihiin loona baahan yahay waxqabad degdeg ah. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaa laga codsanayaa inuu hogaamiyo dadaalka la doonayo in laga baxo khatarta iyo dhibaatada muddada dheer ka imaanaysa madaxweyne hore Farmaajo oo uusan xagal daacin dadaalkaasi mas'uuliyadda saaran u guuto si markaasi karti, hufnaan iyo geesinimo muuqato ku jirto. dalalka Qatar, Eritrea iyo Ethiopia waa in laga codsado inay joojiyaan taageerada madaxweyne hore Farmaajo oo dalka ka wada qalalaase halis gelinaysa nabadda deriska iyo caalamka oo dhan. madaxda dawlad goboleedyada xubnaha golaha midowga musharaxiinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa in ay ku midoobaan mowqifka ah in madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo baneeyo villa Soomaaliya si qaranka Soomaaliyeed looga badbaadiyo dib u dhac, kala daadasho iyo colaad sokeeye. gaar ahaan madaxda dawlad goboleedyada waxaa waajib ku ah in aysan ku adkeysan hirgelinta doorasho musuqmaasuq ah kadib marka lagu guuleysto in madaxweyne hore Farmaajo baneeyo villa Soomaaliya. waa inaan la raacin dariiqii doorasho boobka ahaa ee madaxweyne hore Farmaajo ku duleeyay ummadda Soomaaliyeed. guud ahaan daawadayaal waa inaga inta barnaamijyada channelka laanta wararka aan ku leenahay YouTube-ka haddii aad daawato like inoo saar, subscribe inoo saar channelka Furaga Mararka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal inta dib isugu kulmi doono nabadgelyo.